ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa deeq raashin u qaybiyay ilaa iyo 50 qoys oo danyar ah kuwaasi oo xaafadii ay degnaayeen uu dabaabiyay. xaafadan isku raranta ah oo ay ku noolaayeen dadka madowga ah oo markii horeba xaaladoodu ahayd allow sahal ayaa dabkii ka kacay waxa uu burburiyay nolosha qoysas badan oo u dhashay dalkani Koonfur Afrika. ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsata xaafadaasi ayaa gaarsiisay deeq raashin ah taa oo laga soo ururiyay goobaha ganacsiga Soomaalidu ay ku leedahay deegaankaasi. qoysaskii loo qaybiyay deeqda ayaa ka mahadceliyay gurmadka ay u sameeyeen ganacsatada Soomaaliyeed iyagoona ku tilmaamay in Soomaalidu ay tahay dad aad u wanaagsan. We are very happy that we are in partnership with the Somali community. This is actually a true reflection of what real partnership is. First and foremost, we would like to take this opportunity and thank the Somali community represented by Mr. Mahad Omar for their kindness and gesture and the donations that they've donated to our community. We are especially moved because this move really shows us Africanness. Mahad Umar Abdi Mahad Libaax oo loo wakiishay bixinta raashinkani ayaa goobta ka hadlay isagoo sheegay in loo baahan yahay in la caawiyo dadka danyarta ah ee Soomaalidu ka dhax ganacsato si loo yareeyo isirnaacibka ka jira dalkani Koonfur Afrika. waa arin oo maaragtay dhibaato ballaaran oo dab konton qoys oo mataqaana dad faqiir oo tabaalaysan ah gaartay. marka haddii aan ganacsatada Soomaalida ee ku noqon gobolkan mataqaana Western Cape waxay nagu noqotay inaan indhaha aan ka fiirsan karin familiyaadka faraha badan ee mataqaana hantidoodii noloshoodii iyo wax walba waayay. marka si aan sumcadda Soomaalida oo ka dhax ganacsi dadkan dhibaataysan aan u dhoorno ayaan waxaan go'aan ku qaadanay in aan soo aroorino hanti dhaqaale oo maaragtay noloshooda dadkii guriyo ay ka baabiceen aan wax ugu qabanayno. arintan waxay qabanaysaa in ay shacabka halkan degan u arkaan inaysan Soomaalidu ahayn dad ka dhax ganacsada hantidooda iyo dhaqaalahooda ka sameeya kana taganaysan ahayn ee dad ayaga ka dhax tirsan oo dhibkooda iyo baahidooda iyo tabaaladooda kala qayb qaadanay inay u arkaan ayaan doonaynaa. waxaan kaloon ku dhiirigelinaa Soomaalida meel kasta ay joogto gobolkan iyo wadankan kamida in markii dadka dhib qabto ay maartay dhibkooda la qaybsadaan si dadka dambiilayaasha ah wax looga qabto ay shacabku ay u kasbadaan. ma aha markii ugu horeysay oo Soomaalidu caawiso dadka danyarta ah ee u dhashay dalkani Koonfur Afrika waxa ayna sawir wanaagsan arintani ka bixin kartaa ganacsatada Soomaaliyeed. Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape